gabadh ayaa waxayna soo weydiinaysaa su-aal ka kooban dhowr qaybood. Waxay leedahay nin baa i qaba, ninkaasina waxa uu isticmaalaa maandooriyaha qamriga loo yaqaano ayuu cabaa, mar walba uu i garaacaa, nafteedana waa uga baqayaa inuu idilaba. marka waxaa rabaa ay leedahay in sheekha ay weydiisid marka hore ninkaasi qamriga cabee ee qaabkaas u tasarrufo horta ma igu xiran yahay oo nikaax xalaal ma igu qabaa. marka labaad haddii uu i qabo ina iska furo ayaa doonaya, suuragal ma noqon kartaa marka taas ma ku dambaabaya ma soo caadi? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد runtii masalada ku saabsan guurku waa masalo runtii u baahan marka horeba in si fiican loogu meel dayo oo aan marka horeba la iskaga dhicin meel aan maaragtay munaasib ahayn. qofka uu nolosha la wadaagayo macnaheedu waxa weeyaan mustaqbalka inta noloshaada ka dhiman macnaha qofkii aad is huranaydeen eed wada noolaan lahaydeen eed wax walba wadaagi lahaydeen. marka horeba waxaa loo baahan yahay qofka si fiican isaga eego. shuruudda ugu horreysay qofku la rabo inuu iska jeegarayo iska hubiyana waxaa ka mid ah diinta iyo akhlaaqda wanaagsan. marka qofka haddii diintiisa macnaha uu dhaawac weyn ay qabto sida waxyaabaha hadda ay gabadhu tilmaamayso oo sida qof yacni isticmaala maandooriyaasha iyo wax la midka oo kale waa qof diintiisii macnaha dhaawac soo gaadhay. marka hore ayay waxay wanaagsan tahay in hawsha hore laga taxadaro waa ta hore. ta labaad haddii qofka ay hawshaasi qabsato ama ha loo qariyo ama iyagoo wada nool maxaanku idhahdaa ha barto amaba markii horeba ha ku galo oo maxaanku idhahdaa si ha u ilduufo. mar walbaba arrinta marka koowaad horeysa waxa weeyaan loo baahan yahay in qofka shariigiisa ah ee nolosha la wadaaga uu ku dadaalo inuu hagaajiyo, uu wax ka dhaadhiciyo, uu isku dayo inuu u sheego waxan inay qalad yihiin, inay diintii qalad ku tahay, inay qalad ku tahay xaqii ay labada qof isku lahaayeen marka dhankaa laga eego, inay qalad ku tahay maaragtay maxaanku idhahdaa reerkii burburkiisii, caruurtii. qofku inuu kaalmaysto dadka ahlu ra'yiga ah, dadka qaraabada ah, dadka dhakhaatiirta ah, dadka culimada ah yaa fiican oon laga bilaabin maxaanku idhahdaa inay maaragtay reerkii la kala diro ama hawshaa noocaas oo kale ah. dabcan su-aashii hore gabadha ay lahayd maaragtay ninka noocaas ma igu xiran yahay. qofku hadduu qof muslima yahay maandooriyaasha oo isticmaalaya keliga arrintaa oo keliya kagama furmayso macnaha xaaskiisa. haddii sidoo kale qof muslima uu yahay dee maandooriyahan uu yahay wax dheeraadka ma ka furmayso. guurku waa saxiix sidiisa kale waa jira, laakiin cilaajka ama dawada ayaa fiican in wadooyinka noocaasa in loo maro oo maxaanku idhahdaa qofku uu dadaalkaa sameeyo. haddii ay adkaato oo qofka ama noloshiisii khatar u dareemo ama wax kasta lagaga xaal waayo maxaanku idhahdaa marka u dambeysa waa suuragal qoftaasi inay dalabto dalaaq maxaanku idhahdaa si nolol tan dhaanta ay u hesho ama ay uga badbaado khatarta ay sheegaysa ee ninkan. inkastoo aad igu tiri Soomaaliya Yurub way gabadhu deganta xagga dumarka laguma garaacaan maqalay marka waxaan isleeyahay su-aashaas iyada ah waxaan kula talinaynaa gabadha walaashii inay isku daydo inay ninkaa waxay ka bedasho. hadday adkaato maxaanku idhahdaa hadal inagu aan niri go-aan kuma qaadan karto. culimada iyo ahlu ra'yiga dadka ag dhow iyo qaraabadu ha dhex galaan. haddii go-aan la gaaro in macnaha la kala diro labada qof aslan hadday iskhilaafaan xataa si caadi iyadoon dhibaato jirin laba guddi baa loo saaraya waa la ogyahay yani oo labada qaraabo ka kala socota. marka hawshaas waxay u baahan tahay in loo gogol badiyo, waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laga eego. marka saasaan nasiixadaasaan anigu siin lahaa, laakiin sharci ahaan lama dhib male haddii waxaasoo dhan laga quusto in ay dalaaqeeda dalbato sababto a darar baa jira ku dhacaya ama dhibaato. marka waxaa leedahay mar haddii qofka uu baqaayo in naftiisa uu ku waayo ama dhibaato badan ay ku dhaceyso, dhibaatadii markii hore digniintii ku wajahnay dumarka in ay raggooda dalaaqa ka dalbin ama furiinka way ka baxsananaysaa meelada. dabcan haddii dee ay sugnaato inay ay lafaheedaba u cabsanayso oo khatarta inta leeg ay jirto laakiin dee anigu lafteyda waxaan kugu iri waxaa loo baahan yahay inay hawlahaas lasoo maro oo aan hadalkeena keliya lagu go-aan qaadanin dadka ka agdhow lasoo taxliiliyo iyo dadka maaragtay xogta u haya dadka qaraabadii ay ka howlgalaan iyagaas.